Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawow kanaalka Moga Media meesha aad ka heli doonto qisooyin ugu xiisaha badan ee filimada caalamiga ah. Intaanan guda gelin aan ku salan xabiibkeena Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Intaas kadib haddii aad jeceshahay filimada leh halgan haliyeeyo iyo dunida la dumiyey, ha iloobayn inaad ku dhufato subscribe kana reebto like iyo inaad nalaga wadaagto fikradaada qaybta commenteska. maanta waxaan idin wadnaa sheekada cajiib ah ee filimka 1995 Waterworld. waa filim la sameeyay iyadoo laga baqayo mustaqbalka dhulka. filimka hadlaya biyo, bad, dagaal iyo rajada aadanaha. haddaba bal aan gudaha u galno sheekadan cajiibka ah. qisada Waterworld 1995 sheeko dheer si fudud loo fahmayo. waa maxay Waterworld? Waterworld waxaa la joogaa mustaqbalka fog. dunida oo dhan waa ay duntay. barafka dhismayaasha buuraha laga helay sida Antarctica iyo Greenland waa uu dhalaalay. waxaa meesha ka baxay dhulkii ay dadka ku noolaayeen. waxa harsan oo keliya hal shay: biyaha. dadka intiisa badan waxay ku nool yihiin doonyo yaryar, jasiirado samays ah, atolls, ama waxay si cidlo ah ugu nool yihiin biyaha sare. halka waxaa kaga bilaabanaysa sheeko ka duwan wax kastoo aad horay u aragtay. mariner haliyeyga aan dadka la dhaqan ahayn. waxaa filimka hogaamiye ka ah The Mariner, nin kaligiisa socdaal ah, cabsi badan, aamusnaan badan oo aan lahayn xiriir dadnimo. waxa uu leeyahay dooni casri ah oo si farsamaysan u dhisan, midaasoo ka dhigayso inuu ka sareeyo dadka kale oo biyaha ku nool. mariner wuxuu leeyahay sifo aad u cajiib ah. waa bini-aadam mutakhayir ah, mutante, wuxuuna leeyahay sanbabo uga dhigaya inuu hoos biyaha ku neefsan karo, iyo sidoo kale indho si gaar ah u arko marka uu hoos u quuso. waa astaanta isbeddelka aadanaha marka uu la qabsado deegaan cusub ee dunida. Helen iyo Enola. rajada aadanaha. mariner wuxuu gaarayaa jasiirad dad badan ku nool yihiin, halkaas oo ay ku nooshahay Helen, haweeney geesi ah iyo gabar yar. dhabarkeeda kaga qoran yahay sawir ama map qarsoon. sawirkaasi ayaa la rumaysan yahay inuu muujinayo meel ay dadka qaar u yaqaanaan Darland, dhul weli engegan oo aan biyo dumin. Helen waxay isku daraysaa inay badbaadiso Enola iyadoo ka duuleyso dareenka hooyanimo iyo rajo. mariner si lama filaan ah ayuu isku dhexgelinayaa noloshooda, inkastoo uu markii hore necab yahay dadka iyo xiriirka bulshada. Smokers, cadowga haliska ah. waxa walba way qasayaan. kooxda loo yaqaano The Smokers, burcad badeed ku hubaysan qalab duugoobay sida baabuur duug ah, diyaarado yaryar iyo hub qadiimi ah. waxay ku nool yihiin markab weyn oo burbursan, waxayna ku raad joogaan Enola si ay u helaan meesha dhabta ah ee Darland. hogaamiyahooda Deacon waa nin aan waxba ka xishoon, hami badan, una arkayo Enola inay furo u tahay kalsoonidiisa iyo awoodda mustaqbalka. safarka dagaalka iyo isbeddelka nafsi ah. filimku wuxuu ku saabsan yahay safar adag ee marina Helen iyo Enola, iyadoo laga gudbayo dagaalo, khiyaano, quus iyo rajo. inta lagu guda jiro safarka, mariner wuxuu baranayaa waxa ay tahay galgacayl, naxariis iyo in qof u hurayo wax ka badan naftiisa. isbeddelka weyn ayaa ku dhacaya. mariner, ninkii keligii noolaan jiray, wuxuu noqdaa haliyey badbaadiya mustaqbalka aadanaha. Darland, rajada runta noqotay ugu dambeyntii, iyagoo la dagaalamaya Smokers oo halis gelinaya Enola. waxay helayaan Darland oo ah dhul ay geedo ku yaalaan, shimbiro duulayo iyo buuro sadbeynaya qaawan. waxaa la ogaanayaa in Darland uu ahaa buur weyn oo ka badbaaday daadadka, lana rumaysan yahay inuu yahay buuraleyda Himalaya. Enola waxay noqotaa astaanta rajo iyo badbaado, halka mariner isna socdo safaro kale. haddana markaan wuu bedelan yahay. qalbigiisu waa mid dadnimo leh. Deacon ayaa bilaabaya inuu gabadha dhabarkeeda usoo bandhigo Smokers sida saarnaa ee markabka duqoobay. sidoo kale markuu usoo bandhigo halkaasna waxaa imaanaya mariner
Mariner kadib wuxuu leeyahay soo wareeji gabadha kadibna wuxuu bilaabayaa inuu ku rido markabka qarax ayaa halkaas ka bilaawada dhanka shidaalka markii markab lagu rido halkii qarax markuu ka bilaawdo wixii dhan waxay noqonayaan wax burburo kadib Mariner wuxuu bilaabayaa inuu si qoto dheer leh ugu soo badbaado sidoo kale gabadhana ugu badbaadiyo oo yareed Enola kadibna Deacon wuxuu bilaabayaa inuu soo qaado diyaarad yar si uu ugu badbaado qaraxaasi isagoo ka fikirayo ayaa haddana wuxuu bilaabayaa gabadha halkii ku jirtay inuu kasoo bixiyo Enola waxay bilaabaysaa inay dib u jeclaato Mariner kadibna halkaas wuxuu kasoo kaxeynayaa gabadha yareed Helen ayaa baarshuudka duula soo Mariner wuxuu soo badbaadinayaa Enola baarshuudka iyo xiriga ugu soo diraysa si ugu soo badbaadiso Mariner iyo Enola kadib baarshuudka ee xiriga ay qabsanayaan Mariner iyo Enola si wada jir ah kadib xirigii ayagoo fuulaya Deacon sidoo kale inuu ka soo rido ayuu rabaa laakiin si wanaag waxa Helen ayaa waxay bilaabaysaa inay madaxa kaga dhufato bir yar kadibna halkaas uu ku dhaco biyaha uu ku noqdo Deacon markuu biyaha ku noqdo ayaa qaraxii dhacay kadib markabkii markuu burburay kadib ayaa wuxuu bilaabay Deacon inuu asagana pistool ku dhufto gabadha halkaas ka soo rido markii biyaha ku soo dhacday ayuu Deacon wuxuu bilaabay saarta halkaas ayagoo doonaya kooxda Smokerska inay gabadha qabsadaan wuxuu bilaabayaa si qoto wanaagsan inuu kaga soo saaro saddexdooda ayagoo soo socdaan doonaya inay gabadha qabsadaan saddexdooda markuu gabadha si xirfadeysan ugu eegaya qaabka xeelad xirfadeysan oo dhexdooda ugu dhex qaada ayaa mid ka kale waxay bilaabayaan inay isku qarxadaan saddexdoodaba sidaas ayay ugu badbaadeen Enola iyo Mariner sidaa ayay Helen iyo kuligooda si wadajir ah waxay ku aadeen halkii Darland oo meel qurux badan ah Mariner wuxuu bilaasay qalbi kalgacal ku jiro inuu la hadlo Enola kadibna si dib ay ugu soo eegtay waxay bilowday Enola inay soo istaagto si ay u guddoonsiiso haddii yar ay ugu talgaso Mariner haddii markii uu guddoonsiisay kadib Mariner ayuu dib u eegay kadib ay dhunkatay kadib waxay bilowday inay la hadasho ay hadan dib u sii baxdo kadib wuxuu imaaday Mariner Helen iyo la hadlay asoo kalgacal iyo naxariis intaba ka buuxsamay ninkii oo ahaa gabagaba fariin filinku wuxuu nabarayaa in xitaa marka dunida u muuqato mid dhamaatay rajo weli ay way jirtaa waxaa laga yaabaa in bini aadamka uu la qabsaday isbedelka Darwood wuxuu isku darayaa saynis halgan filasho iyo isbedel waa filim cajiib ah Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh la subscribe inta waa dhankiina